gartay hadda waxaa jira maantadani waxaa ka degay magaalada Hargeysa wafdi heer sare oo ka socda dawladda Ethiopia waxaana jirta muran siyaasadeed xoog badan ka dhashay wararka sheegay in madaxweyne Farmaajo uu booqan doono Hargeysa marka maxay kula tahay danaha sida u fog ee Abiy Ahmed uu doonayo in madaxweynaha uu ku tago Hargeysa ma la ogyahay ma jirtaa warkaas ma soo warsuuq weey ma la huba maxaa isku soo beegay wafdigan heerka sare ma yaa dhageyso ma la huba ma soo warsuuq weeye barnaamijka Ethiopia ka xaynay madaxweynaha Soomaaliya Hargeysa geynaya war la huba miyaa ma soo warsuuq laga abuuray weey dadka qaar waxay dhan aamusnaanta waa ha dawladda Soomaaliya ilaa hadda maysan ka hadlin ya dawladda Soomaaliya ilaa imika maysan ka hadlin taasi dadka ka amsay iyaga dimigeeda inay ka hadlaan laakiin anigu ma aaminsani barnaamijka Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya ka xaynay dal Soomaaliya geynaya waxay macnaheedu ku fadhiyaan garan la ilaa hadda Soomaaliya waaba inkirtay inay wax ka jiraan nooma iman kariyaan ma jirto waa been kii madaxweynaha laftiisa waa inkiray soo moo Muuse Bixi wuxuu yiri ma iman karo ma iman karo mana jirto inuu yimaado waa inkiray ma jirto Muuse laakiin wuxuu yiri ma iman karo haduusan raaligelinta wuxuu yiri waxa lagu hoos qarinayaa arintani kuma hoos qarin karo inuu na raaligeliyo inuu noo yimaado isma qaadato yiri ma dhageyso على أي حال أرنتاسو قلنا إنه كما هني قلاسنا وايكرين مركا ورسوق إنه يارو مالين يارو ورسوق لقى أبابو إنه يارو مالين مركا معقول بماها برم سيرك إثيوبيا كحيني مدحوين الصومالي وضد الصومالي وجيني وهم معقولة سيد هذا سوقي لو سبقوا يا رئيس أركان ولا هضلان أما شير وقت سبقوا قبت الدول ده أي معقولة لكن برم سيرك إثيوبيا حمر إيمانية madaxweynaha Soomaaliya ka xaynaya Hargeysa keenaya tikee dawladda ma baahaba wax way waa wax been ka dhacbeen away marka khilaafkani goon istaag Soomaaliland waqti dheer buu qaatay waa muddo 30 sano ah wax isbedel ahna ma muuqdo marka ka siyaasi ahaan iyo mas'uul ahaan maxay kula tahay lagu xalin karaa khilaafkani u dhaxeeya Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland waxa loo deyn wada hadal Soomaaliya lagu waayo awood military lagu boqolinaya xoog military صح oo dawladda Soomaaliya inay maqooniso maamulka kala go Soomaaliya waa sharci darro waan cidna ma matalaan nimanka meesha jooga dambi qarankii weynaabay galeen dalka Soomaaliya kala gooyeen midnimadiisa meel kaga dhaceen soo garamis calankii bay gubeen waxayna waana la dadkii laayeen ba kun goor ka badan inta ay dagaalka ka dhimatay ayadoo loo shaqeynayo wadooyin loo dhiso warshado loo dhisayo iskuulaad loo dhisayo gacanta lagu hayla shaqada siinayo iyo inta amxaara u tageen qoriyo ka soo qaatay la soo duuleen bay burbari Hargeysa iyo burcantay soo galeen caalamka Soomaaliya tuureen oo gubeen oo laayeen guriga intay fuuleen qoriyo la fuuleen soo garmis yani dambi qaran la galay kii weynaabay galeen mataqaana marka waxaad leedahay talaabooyinkii dawladda dhexe kula dirartay way saxsanaayeen dawladda dalka difaacis yaa gardar min dalka kala goynayo cadawga Soomaaliya la soo saftay oo calan kala wato dalka la goynaya iyo ninkii difaaci ka gardaray Soomaaliya qaranimo horta ma taqaana qaarkood waxay dad qaar ku doodayaan in ay markaas ka cabanayaan cadaadis saaran justification ma aha waxa weeye Soomaaliya kala goynaya calankii Soomaaliya gubaya amxaara iyo cadawga wada dagaalamayna u tagay la soo safanaya justification ay keeni karta male apologies ka hatta la siinaya qalada waxa weeye shacbiga dhibaatada ku dhacday ayaga ka mas'uul SNM ba mas'uul ka soo garmis yarkee shacbiga degan oo barwaaqo ku jira oo ladan ba intay soo galeen magaalooyinkii qoryo saareen darbiyada meel walba rasaas soo riday ciidamada iyo rasaas la dhaceen ciidanku waa difaaci dalka in la kala goydiinay waan gartay waxa tir rag hadda iminka hor kacaya maamulka Soomaaliland ma ahan kuwa maxaa la yiraahdaa hadda ninka madaxweynaha sheeganaya 750 qofood buu boorama ku dilay sanadkee marka waagaas ay soo galayeen meesha 750 buu وما جران مركع عدين ولا كي والله يا ساوي دتك واو جوا كلي سو قرمس كل يلا بقول دتك حديها قحوتي ku jira Ethiopia ka soo ayay dileen ahsan bay ahsan bay xay tay xaaro u tageen ka soo qaatay soo garin dal weer ku soo qaaday dalkood degan oo caadi ah laakiin hadda mudan waxay sheegan waxa la sheegay in doorashooyin qof iyo cod ay ka dhacaan dhulka Soomaaliland warma u dambeysay
waa mid hadda muuse bixi uu talada qof iyo cod wax la yahay ma jiraan wax ka jira ma jiraan hada qabaa'il meel qabsaday weeye qabiil iyo qaran meel ma wada galaan ana ku sheegay justification dadka Soomaalida wadaniyad ma leh iyo nuxruftoona war ninka calanka Soomaaliya gubi aniga muxuu yahay oo soo taagan what is this Soomaaliya kala gooy what is that maadaama aad tahay nin aqoon-yahan ah muuse bixi shalay markuu jeedina khudbadda wuxuu sheegay markii xorriyadda ay qaateen gobolada waqooyi ee Soomaaliya in 37 dawladood ay dowladdiiba aqoonsadeen bentis weeye beenaale weeye laba dawladood meesha ma midoobin laba gobol oo gudihiis isticmaalku ka kacay oo Ingiriisna ka kacay Talyaani ka kacay soo yimid kooda Juulaay jamhuuriyadda Soomaaliya la asaas dawladda dastuur leh oo madaxweynayaal isuma iman marka xaguu ka yimid hadalkan waa been wax ka jira ma jiraan beentooda dhageysan dhageyso laba dawladood meesha ilaa laba qaran isuma iman 26 Juun bishii waxa la soo yimid ka horeysay dawladda intaan la qaadan marka inay la soo yimaado marka la aasaaso jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu heshiiyay soo garmis laakiin laba dawladood oo dastuur leh oo madaxweynayaal leh ma leh isuma iman marka ma jiro oo laba calan lama jirto fiiri 26 Juun bulugleyba laga taagay Hargeysa bulugleydi konton iyo labada halkan laga taagay oo daaqilka laga taagay waa Hargeysa 26 Juun laga taagay marka ma jiro wax lagu sheegayo waa tahay waxa sheegtay in haddii ay ku dhaga adeegaan go'itaanka in xal kale uusan jiro in talaabo military waxa weeye awood military lagu muqorinaya midnimada ummadda Soomaaliya waa sakara weeye soo garabsi waa qasab weeye haddii wada hadal iyo walaaltinimo Soomaaliya wax lagu waayo waa la isku qorinay marka walaaltinimada iyo Soomaalinimada dhabahay loo mari karaa iyadoo aan la aadin talaabo waxa weeye in la isla garto in Soomaaliya ay mid tahay wax ka dhaxeeya inay aaminto Soomaalimo magaca Soomaaliya aniga igala dhaxeeya dhulka igala dhaxeeya diinta igala dhaxaysa dhalashada igala dhaxaysa tabashooyinkoodana waxay ka tabanayaan waxay leeyihiin dawladda dhexe wayna laysay waa beertood way dawladda dhexe iyaga dadka laayay SNM baa dalka laysoo gubtay oo baabiisay ma ogid baa dalka laysay ma inoo sheeg ilaahay wuxuu ogay inta ka dhimatay boqolaabkeed bidilay wadada iyo dilay seeway SNM ha magaalooyinka soo galeen waxa la wuxuu koonfureedka waa laayeen soo garbis reer boorame laayeen reer awdal bay laayeen waxa laayeen baalkii sool bay laayeen soo garbis dadkii qaxootiga ka soo xareeyay maxaa xariyaha ku jiray laayeen baabiiyeen waxsan ma laga sheekeyn karaa beentay sheegaya ma run moodaysa adiga waan gartay waxa soo hadal qaaday awdal iyo sool iyo sanaag xitaa haddii aynu raacno aragtida Somaliland waxaa jira in goboladaas aad hadda carabowday waxaa jira warar sheegay inaysan ku qanacsaneen inay ka go'aan qeybaha kale ee Soomaaliya maxaad kala socotaa maanta kulli Soomaaliya waa dadkaas dhan Soomaaliya bay rabaan kuwa Hargeysa jooga Soomaaliya rabaan diidan marka kuwa maamulka sheeganaya diidan afarta maxay ku diidayaan waxay ku diidaan in Soomaaliya kala gooyo mabda xumay wateen way mabda xumay awal hore wateen way maxay tadanaha ay ka doonayaan waxaysan shacabka ogolayn hadan taada kugu raaco anigu waqooyi baan ka soo shaqeeyay waqooyi galbeed baan ka soo shaqeeyay sanaag baan ka soo shaqeeyay 73 dalka Soomaalida oo wax problema ka jira oo dadku dhasaas yihiin la wada ordahay habeen baan u seexay markii aan toosnay waagu markuu bariyay magaalada Hargeysa oo dhan wadooyinka oo dhan bariis hilibna kaliya ku daadsan san war maxaa dhacay waxa la wadaad halka jooga ayaa wuxuu yiri Sheekh Saxaaq oo wata askartiisi waa caaw soo dagaayay qoys walba 1 kilo bariis 1 kilo hilib kariyo garat abaabul qabiil laga dhigayo ah mataqaan siyaasad dadka masaakiinta beenta loo sheegay dadku qoyska dad Soomaalida ugu wanaagsan bay kamid ahaayeen oo wadaniyada u shaqay kamid ahaayeen dagaalkii 77 la daabi ku qaateen soo ma og taa kulantii ciidamadii garab istaagay kii 64 sidoo kale ahaayeen soo garmis waa lagu ciyaaray qabiil baa calan lagu dhiibay anaga reer hebel weey keer weey dad kale Soomaalida adoon iyo waxa soo yiinooyay mataqaana jireer iyo baraay isu timid weey wax lagu weysanay oo sharaf lahayd soo garmis been baa laga bixi hadda dii sida loo ogaa mudane oo adigana mar aad soo noqotay mas'uuliyiinta wadanka ugu sareeya maxaa loo sugay muddo 30 sano ah in arinkan uu taagnaado sababta dalka dhamma burburay 30 sano maxaa dawladda awood la Soomaaliyeed ma jirto dalka jirta dalka dhamma burburo kala tago kala yaacay oo qolo meel u yaacday soo garabis
استيدي بيان أو بقتي أي لا سمية استيدي قبائل لا سمية والله كر على الرميش سو قرمس مركز دول ده أود له ضلك سو عرين كتو سو كين كتام ولي ضلك ما يدرى إلى تاسو لا تنا دول سومالي معناها السوق مسبح شرعي وكو إيدي دولتني مدحوينا مع عبد الله فرماجي إني أيد تي وعدوا السنة أي وجهان تاني أنت كل واقع مدح بناني ده وأي كجرت دقاله أو أي ديدي إن ودما قار أي لما عاملان سومالي لنسيقوني marka eedeenta soo lama oran karo waxba ka jira haday jirto wax fiican way gooni u goosato dhaqaalaha Soomaaliya dalka Soomaaliya xushmada Soomaaliya diiday Soomaalnimada inkiray ya maxaa ka weyn dambi qaran laga gool dalka la kala gooyo way calankii dalka ka dhaxay ninkii gooy oo baabaashay malcag baad siinaysaa xoolo iyo xiriir adduunka la sameeyo marka waxaad leedahay haddii jiraan eedeymaha waa kuwa saxa hadday jiraan wax saxa wey waa ku soo dhaweynaya hadday ba jiraan ba aan u jiraan ma ogeyn